السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa telefishinka caalamiga Universal TV studio-hana magaalada London. waxaanu soo gaarnay saacadahan oo kale xilligaad naga barateen inaan hawada soo marsiino war wixii naga soo gaaray dalka gudihiisa dabadiisa oo akhri anigu Maxamed Saciid Saxaaf. qodobada warkaan kuga helnana waxaa kamid ah dalka Djibouti ayaa lagu qabtay shir lagaga hadlaya nidaamka socdaalka iyo isku socodka wadamada ku midoobay urur dawlad goboleedka IGAD. ka qaybgalayaasha shirka ayaa waxaa kamid ah mas'uuliyiin ka socotay dawladda dalka Soomaaliya. wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta dawladda dalka Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay isla garteen in biyaha la gaarsiiyo dadka reer miyiga. waraysi gaar ah oo si telefishinka Universal ayuu kaga hadlay shir dhawaanaha lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa bilaabay dib u dhiska wadada kacaanka oo kamid ah wadooyinka halbowlaha magaalada Muqdisho. mas'uuliyiinta qaasatan gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed inay qayb weyn ka qaataan dib u dhiska iyo bilicda caasimadda Soomaaliya. wararka caalamkan waxaanu kuga haynaa wadamada xiriirka u jaray wadanka Qatar ayaa sheegay in muddo kordhin ay ugu sameeyaan fulinta shuruudaha ay ka sugayaan dawladda wadanka Qatar. qodobadaas iyo qodobo kale oo dhameystiran bahadiyay been waxaad ku daawan doontaan warkeena. waayahay daawadayaal ku soo dhawaada warkiyo fidsan. wadanka Djibouti ayaa lagu qabtay shir lagaga hadlayay socdaalka iyo isku socodka wadamada ka midka urur dawlad goboleedka IGAD. shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda dalka Soomaaliya. warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Djibouti inooga soo diray wariyaheen Axmed Cabdikariin Maxamed. shirkan ka dhacay wadanka Djibouti ayaa waxaa ka qayb qaadanaya wakiilo ka socda wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD. waxaana shirkani looga hadlayaa sidii loo fududeyn lahaa hanaanka socdaalka ee wadamada gobolka Geeska Afrika ee ku midoobay urur goboleedka IGAD. muddada shirkani socdo ayaa ka qaybgalayaashu waxay uga doodin doonaan sidii loo fududeyn lahaa isu socodka wadamadaasi dhexdooda ah. xogeyaha guud ee wasaaradda shaqada dawladda federaalka Soomaaliya oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkaasi ka qayb qaadanayay ayaa kadib furitaankii shirkaasi warbaahinta tafaasiil ka siiyay shirkan iyo waxyaabaha la iskula soo qaadin doono muddada uu shirkani socdo. shirkan waxa looga hadlayay sidii loo sameyn lahaa ama wadamada IGAD u heli lahaayeen in ay isu socdaan si uu u sahlanaado ganacsigii isdhexgalkii iyo howlihii kale ee nolosha bini aadamka ku saabsaneed. waxa la soo bilaabay 2010kii sidii loo sahli lahaa isu socodka maaragtay wadamada IGAD dhexdooda ah. marka waxa laga wada hadlayay hadii ay noqon lahayd dhinaca shaqada, hadii ay noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha oo wasaaradaha maaliyadaha, hadii ay noqon lahayd dhinaca sharciyada. dhinaca kale shir looga hadlayo arrimaha qaxootiga Soomaaliya ayaa ka furmay wadanka Djibouti waxaana shirkaasi ka qayb qaadanaya mas'uuliyiin ka kala socda urur goboleedka IGAD iyo waliba hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR loo soo gaabiyo. shirkan looga hadlayo arrimaha qaxootiga Soomaaliya ayaa mas'uuliyiinta ka qayb qaadanaya muddada 2 maalmood oo socda waxay uga hadlin doonaan sidii loogu fududeyn lahaa dadka qaxootiga ah ee Soomaalida ah ee doonaya inay dalkooda dib ugu laabtaan. وقايبسناها حفيزك الرئيس الوزراء الصومالية arrimaha socdaalka iyo bini'aadanimada Maryam Yaasiin Xaaji Yuusuf ayaa ka dib furitaanka shirkaasi tafaasiil ka bixinaysa waxyaabaha shirkaasi looga hadlayo iyo khudbadeedii ay ka jeedisay shirkaasi waxyaabihii ay ku saabsaneed. shirka maanta waxaa soo qaban qaabisay hay'adda IGAD ee Soomaaliya xubin ka tahay waliba ka tahay xubin markii active ahead markii IGAD la aasaasay. shirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay arrimaha qaxootiga Soomaaliya oo joogan kuna sugan wadamada oo IGAD member states ka yiraahdo ha ahaato Kenya, Uganda iyo wadamada kale oo East Africa. saa ula socotaan waxaa jira shir oo Nairobi ka dhacay oo looga hadlayay arrimaha qaxootiga Soomaalida sidii soo celintoodii iyo markay hadda wadanka imaadaan ay soo noqdaan sidee bal dib u dejintii iyo maxaa la dhahaa iyo assistantka ay dadkaas u baahan yihiin. Axmed Cabdikariin Maxamed
Universal TV Djibouti. wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta dowladda dalka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka jira dalka ay isla garteen in biyaha la gaarsiiyo dadka reer miyiga. telefishinka Universal ayuu wasiirku siiyay waraysi gaar ah oo taabanaya dhinacyo kala gedisan isla markaana uu kaga hadlay shir dhawaanaha lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. warbixin inta ku saabsan waxa inoo soo koobaya wariyaheenna Cabdicasiis Ibraahim Okeyn. wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda Soomaaliya Saalim Caliyow Ibro oo telefishinka Universal la hadlay ayaa sheegay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ay wada qaateen mashruuca biyasiinta reer miyiga kadib shir muddo 2 cisho Muqdisho ugu socday xubnaha wasaaradaha biyaha dowlad goboleedyada qaar ka mid ah warshadaha biyaha siya shacabka xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda Soomaaliya. wasiir Saalim ayaa tilmaamay in talaabada biyasiinta reer miyiga ay ahmiyad u leedahay dadka Soomaaliyeed haddii ay dhaqan gashana laga bixi karo baahiyaha dhinaca biyaha ah ee haysata bulshada Soomaaliyeed xilli biyo la'aan ay ka jirto inta badan geyga Soomaaliya. barnaamijkan wuxuu ku markaan aragnay dhibaatada jirto ayaa wasaaraddu ay xoog saartay waxyaalo inay barnaamijka soo mashruucyada soo kala hormariso oo waliya wax la yiraahdo. waxaan ka bilaabnay in reer miyiga dhinaca biyaha wax loo qabto ceel loo faago ceelashaas waxaan u hormarin meelaha u daran ayaan meelaha aad u fog ayaan meelaha u fog ayaan ku darnay aan ka bilaabnay waxaan u arkaynaa dabcan baahida ma buuxinayaan baahida biyo u qabno reer miyiga laakiin waxay dhibaatay soo yareynayaan. barnaamijka waxaa waaye inaan heer aan gaarsiino ceelashaas inay ku badbaadaan reer miyiga dhibaato kastoo haddii ilaahay nooma keeno abaar timaadin dhibaato maalinaad ay ka yaraato ayaan ugu talagalnay. ujeeddada ugu weyn ceelka waxaa waaye deegaameyn markii ceel meesha mar dhasho ceel markii laga qodo waa inay magaalada ay noqotaa meesha. muddada uu socday shirka lagaga hadlayay biyasiinta reer miyiga oo ay soo qaban qaabisay xukuumadda Soomaaliya waxaa madasha ku sugnaa wasiirada wasaaradaha biyaha dowlad goboleedyada maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada shirkadaha biyaha bixiya. Awil Xirsi Xasan wasiirka wasaaradda biyaha iyo korontada Galmudug oo kamid ahaa xubnaha shirka ka qayb galay ayaa waxa uu tilmaamay faa'iidada bulshada ay u leedahay barnaamijka biyasiinta reer miyiga. shirkan diraanirkiisii uu soo bilowday 3 bilood ka hor haddana uu soo gabagaboobay run ahaantiina miyiga markii la yiraahdo meeshaan ka soo jeedno Galmudug ah waa qayb kamid ah miyiga kamid tahay uguleeda dadka degan waxa isku darsoomay abaaro dhibaato laadligeed marka waxaan u raadinay si macnaha garab loo siiyo dadkaasi si biyaha nadiif lagu sii lahaa boqolkiiba 75 Galmudug waxay leedahay ceelal laakiin ceelasha biyo nadiif ma laha dadkuna waxay rabaan biyo nadiif in la gaarsiiyo oo miyiga jooga loo geeyo. marka waxaan dhigi karaa waa wasaaradda tamarta biyaha iyo kheyraadka biyuhu waxaan leeyahay iyo wasaaradaha istediyada ka socda guul bay gaareen. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okeyn TV Universal magaalada Muqdisho. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa bilaabay dib u dhiska wadada kacaanka oo kamid ah wadooyinka halboolaha oo caasimada dalka Soomaaliya Muqdisho. gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaalida inay qayb weyn ka qaataan dib u soo celinta bilicda caasimada Soomaaliya. warbixin inta ku saabsan waxa inoo soo diray wariyaheenna Zakariye Maxamuud Timacade. hagaajinta iyo dib u soo celinta wadada kacaan ee kala barta degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag ee magaalada Muqdisho waxay qayb ka tahay howlaha ugu muhiimsan ee uu ku mashquulsan yahay maamulka gobolka Banaadir. waxaana kormeer ku tagay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed. gudoomiyaha oo la hadlay warbaahinta ayaa ka codsaday ganacsatada Soomaaliyeed inay ka caawiyaan dhisidda wadadan si mar kale ay ugu soo laaban sidii hore. maanta waxaan taaganahay wadadii kacaan laakiin dadka qaarkood ay u yaqaanaan cirtoogte laakiin wadadan marka hore caadiyan ka soo bilaabato isgoyska shaqaalaha ilaa iyo ku dhamaato warshadaha laakiin hadda aan dabka ka soo bilaabato ku dhamaato ilaa warshadaha laakiin hadda inta aan ka shaqeynay oo dhowr 20 sano oo baabuurra aysan marin oo xayirneed sida ka aragteen 29 bishii oo aan halkan ka bilaabno ololaha nadaafadda aan ka soo bilaabanayso isgoyska Bakaaraha ilaa iyo isgoyska Black Sea wadadaas oo hadda aad aragtaan gadaasheeda sida ay hadda u eg tahay iyo maalin markaa imaanay sida ay ahayd waxay leeyahay mahadiis iskalena warqad soo dhameysana wadadii hagaajinteedii gaar ahaan ololaha nadaafadda aan soo hagaajinay oo maanta ay suurta gashay gawaarida inay isku gudbaan ay maraan wadadan
awalna xataa dadka aysan isku gudbi karin oo dadka ay sameysteen buunda ay ku gudbaan waxaan rabaa inaan baaq u diro ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada Bakaare hadda joogta ee suuqa waxa runtii aad ii damqinayso oo qof kasta Soomaali damqinayso magaca ganacsatada marka maqlo waa magac weyn in ganacsatadii maanta waajibka iyaga saarnaa annagana saarnaa qaybtii annaga nooga aadaneed waan ka soo baxnay oo waajib saarnaa dawladda hoose way ka soo baxday wadadii waa la hagaajiyay waa la furay ganacsatada waxaan ugu baaqaynaa wadadan si wada bilic wanaagsan looga dhigi lahaa laamigeeda loo hagaajin lahaa si aan u noqono dad wada jir ama partnership dad si yaani isku biirsado oo wax ka qabto kaalinteena waa ka soo baxnay ganacsatada Bakaare waxaan ugu baaqaynaa iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada in ay isu yimaadaan annagana gacan furan ku soo dhaweynana oo wadadan bilic sidan ku soo celin lahayn u dhisi lahayn qaarkood dadka deegaanka ayaa ka hadlay farqiga u dhaxeeya wadadan ka hor inta aan lagu sameeynin hagaajinta xaaladan meeshan hadda ay taagan tahay waxaan wada ogsoonahay hawsha tan markay bilownaysay khamiistii xaalad bay ku sugnay maanta waxaan u jeednaa xaaladii ka duwan maxay ku timid arrintaasi waxay ku timid dadqasho macnaa damiir iimaan laano iimaankii wuxuu ku farayaaba annadaafatu nisfu liimaan ila qofka mu'minka nadaafadda intuu ku dadaalayo ayaa iimaankiisu u jiraa marka xaaladan meeshaan bulacad baa tiilay maantana waxay noqotay meel la mari karayo oo laga adeegan karayo maraaxisha meesha ay soo martayna waxaan u faa'iideynaynaa si guud ahaan walaalaha iyo maamulada iyadoo maanta ilaah aan ugu mahadcelinayno gudoomiyaha gobolka oo weli aysan dhicin gudoomiyaha halkan soo istaagay aysan dhicin inta macnaa maamulo meeshaas ay soo mareen laakiin maanta ilaahay fadligiisa ilaahay waa waafajiyay ducadaasna allaha siiyo Zikriye Maxamuud Timcad Universal TV Muqdisho magaalada Maalmo ee dalka Sweden ayaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo ku saabsanayd xuska maalinta xurriyadda waddanka Soomaaliya xafladda ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada ku nool waddankaas iyo waliba safiirka dalka Sweden ee u fadhiya waddanka Soomaaliya warbixinta ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Faarax Yaasiin Cismaan xafladkooda luulyo si heer sare ah loo soo agaasimay runtiina loo oran karo waxay ahayd tii ugu ballaareed nooceeda ah ayaa lagu qabtay xaafadda Khisingo ee magaalada Maalmo dalka Sweden munaasabadda waxaa ka soo qayb galay markii ugu horeysay kooda luulyo ee lagu qabtay waddankaasi Sweden safiirka Sweden u fadhiya dalka Soomaaliya mudane Mikael Lidvall siyaasiyiin waxgarad aqoon-yahano dhalinyaro haween caruur culimo fanaaniin iyo kooxda hidaha iyo dhaqanka safiirka ayaa ugu horeyntii hambalyo u diray ummadda Soomaaliyeed ee ku aadan kooda luulyo kadibna waxaa la weydiiyay su'aalo fara badan oo ay ka mid tahay dowladda cusub hadda dhalatay oo 6 bilood jirta wada shaqaynteeda sabab u arkaa ma dowladdii hore ka shaqo wanaagsaneed ma tana ka shaqo wanaagsan mise in wada shaqaynteeda oo fududahay hur är samarbetet med den nya somaliska regeringen och vad är din spontana känsla så här under den här korta perioden? madaxweyne Farmaajo waxa uu xoogga saaray xagga nabadgelyada dalkana waxaa ka socda horumar tartiib ah kadib aqoon-yahano iyo waxgarad oo xafladaasi ku sugnaa ayaa ka sheekeeyay taariikhdii halgankii xoreyntii iyo heerarka uu soo maray bishaarada kale ayahaya waxaa weeye aan hadda ka hor taaban Soomaaliya waxaa la hubaa marka kan inuu petrol xoog leh ku jiro uma maleynaya inaad aragteen qoraal ka hadlaya waxbarashada oo wax negative ka sheegaya magaalada Maalmo taasi waxa weeyaan macnaheedu dadaalkii faraha badnaa ee aanu gelinay waqtigaas yalallaha hoggaan shacabka jecel hadiyad noo siiyay allaha haliso badan naga baxshaan mahad u haynaaye Soomaaliya hilaac baa u baxay hoorsin khayr qabee waxaa dadka xamaasadooda u kiciya fanaaniinta oo soo bandhigay heeso wadani ah aad ugu mahad celinayaa hidiya dhaqan iyo Soomaali fareenin oo igu casuumay meeshaan calanka Soomaaliya heebo cirshiga ka nuur cirkaadu eegtaa ya rabeeyo laga habsado
faarax yaasiin cismaan universal t v maalmo magaalada toronto ee wadanka canada ayaa waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo ku saabsaneed xuska maalmaha xorriyadda wadamada canada iyo dalka soomaaliya oo ku wada beegan maalinta 1 bisha July. waxaa xafladda ka qayb galay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada iyo waliba baarlamaanka wadanka canada. warbixin arrinta ku saabsanna waxaa inoo soo diray waryaheena Mahad Carabow. magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa lagu qabtay laba munaasabadood oo ujeedadooda ahayd xuska 150 guuridii ka soo wareegatay markii ay dawladda dalka Canada qaadatay xorriyadda iyo 57 guuridii ka soo wareegatay maalintii ay xornimada qaadatay dalka Soomaaliya. munaasabadaas waxaa sanad walba lagu qabtaa wadada loo yaqaan Dixon Road ee ku taala galbeedka magaalada Toronto. munaasabadaas waxaa soo qaban qaabay ururka Today oo urur ciyaaraha u qaabilsan Soomaalida dalka Canada. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan magaalada Toronto waxaana ka hadlay qaar ka mid ah golaha wasiirada dalka Canada iyo qaar ka mid ah golaha baarlamaanka dalka Canada waxayna labadaas ummadoodba ugu hambaliyeen xilliga ay soo joogeen oo waqtiga ku simay. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha dalka Canada mudane Axmed Xuseen waxaana dadka goobtaasi isugu yimid ugu hambaliyay labadaas munaasabadood oo qaaliga ah waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan rabaa inaan ku bilaabo inaan aqoonsado dadka nala taagan inay yihiin dad u shaqeeyo dadka Kanadiyaanka dhan oo ka mid yihiin dadka Soomaalida. maalinta Soomaalida xornimada iyo maalinta Kanada waa isku maalin marka nasiib baa noo tahay labadaba inaan xaflad u yeelano. I also want to thank, a lot of times we forget that such amazing events are organized by volunteers who work in day in, day out. I just want to make very brief remarks. One is that we all hope, as Canadians, as Somali Canadians, that our homeland becomes peaceful and prosperous again, and that the work of Canadians of Somali background who keep going back to Somalia. I'm happy to give you the good news that a few weeks ago I was proud to be the Canadian Immigration and Refugees and Citizenship Minister that was responsible on behalf of the whole government for the passage of C6. Bill C6 is now law, and from now on, our government will not be able to introduce second-class citizenship in this country. And a Canadian is a Canadian is a Canadian. Thank you very much. wasiirka teknolojiyadda dalka Canada Kristen Duncan waxa ayadana hadaladeedii ka mid ahaa My beautiful family, happy Somalia Day, happy Canada Day. My beautiful family, and I mean my beautiful family, I want to say thank you. Shafiq Qadiri oo ah mudane baarlamaan oo asagana laga soo doorto xaafadda Ethiopia North ayaa asagana hambalyo u diray labadaasi munaasabadood. Dr. Kaiska Shafiq Qadri ururka baarlamaanka Ontario. Brothers and sisters, Eid Mubarak, happy Canada Day, happy 150th birthday to Ontario, happy 57th Independence Day of Somalia. Alhamdulillah, we're in Dixon Road in Etobicoke North. gabagabadii waxaa hadalkii soo gunaanada legend laacibkii weynaa Mukhtaar Maxamed Axmed Mukhtaar Cuti waxaana hadaladiisii ka mid ahaa marka hore waxaan mudcelinayaa media oo aad iyo aad ayagana waxa weyn ka qaatay arrintan sidoo kale aad noo caawinay iyo ururka Today oo aad ayagana hawshan aad u qabteen sidoo kale waxaan rabaa dadweynaha iyo all of you guys idinka la'aantiin waxaan maqal lahayn runtii ku maasantihiin saas ku soo baxdeen maanta oo aad noo caawinteen sanad kasta insha Allah hadduu Ilaahay halka noqdo waa qaban doonaa arrimahan oo kooda luuliyo Soomaaliya ha noolaato Canada ha noolaato Mahad Carabow Cali telefishinka Universal magaalada Toronto ee dalka Canada. guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa bilaabay wacyigelin ku aadan qaadashada kaarka codbixinta ee doorashooyinka Somaliland waxayna ka bilaabeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. warbixin inta ku saabsan waxaa inoo soo diray waryaheena Cali Daahir Maxamed Boos.
guddiga komishinka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa ka bilaabay magaalada Burco wacyigelinta qaadashada kaarka codbixiyaasha ee gobolka Togdheer ka bilaabmaysa 8 bishan aynu ku jirnay July. waxaanay kala hadleen qaybaha bulshada sidii loo dardar gelin lahaa qaadashada kaarka codbixiyaasha doorashada madaxtooyada Somaliland ee la qoondeeyay inay dhacdo 13 bisha November ee nagu soo foolle. qaar ka mid ah xubnaha komishinka doorashooyinka ayaa la hadlay warbaahinta. kan maanta oo bishu laba tahay bishii 7aad aynu ka iclaaminaynaa in wacyigelintii gobolka Togdheer ee ahayd kaar qaybinta ku saabsaneed kaar qaybinta sidii dadka looga wacyigelin lahaa in kaar qaybintu inoo bilaabmayso. waxay inoo bilaabmaysaa kaar qaybintu haddii alla yidhi bisha 8 bisha 7 wacyigelintii gobolku aynu bilownay oo ah in ay ka qayb qaadanayaan NGO-yada iyo masharkadii heshay gobolkan Togdheer maanta bishu laba tahay baanay bilaabmaysaa kullu way noo soconaysaa ilaa intaynu maxay ka soo xidhi doono. waxaanay u socon doontaa qaybaha kulley qoladan maxay hawsha gacanta ku haysa ayaa sii sharaxi doonta. annaga waxaa nooga bannaan inaynu maxay gaadhsiino muwaadiniinta gobolka degan inuu bilaabmay gobolka Togdheer oo dhan ayaa wacyigelinta laga fulinayaa oo ah degmada Burco iyo degmada Wadweyne iyo degmada Buuhoodle. magaalada Burco waxaa ka howlgelaya 4 tiim. wacyigelintii sidii loo qaadan lahaa kaarka ayaa socota. komishinkii waa kaasoo annaga hawshii aadaan uqaasha iyo dadweynaha wanahay waa nagu wareejay. علي داير محمد بوس تي في يونيفرسال waayahay wararka caalamkana waxaynu kuga haynaa wadamada xiriirka u jaray wadanka Qatar ayaa sheegay inay saacado ugu kordhinayaan dawladda dalka Qatar inay ka soo jawaabto shuruudaha laga sugayo. warbixinta ku saabsan waxa dhawaanahan isha noogu hayay inuu raacay wariyahayna Maxamed Ahmed Xaaji Cagmadhige. wadamada afarta ah ee iyagu xiriirka u jaray sida ay sheegeen wadanka Qatar ilaa iyo 10 maalmood ka hor ayaa waqtigay u qabteen waxa uu dhamaaday maalinimadii Axadii oo ahayd 10 maalmood. kadibna waxay soo saareen Saudi Arabia, Istaga Imaaraadka Carabta, Masaarida iyo waliba Bahrain 48 saacadood oo dheeriya inay u qabteen in ay Qatar ku yeesho qodobada 13 ee loo soo jeediyay. arrintaasi iyada ah dawladda Qatar si rasmi ah jawaab uga bixin arrinkan dambe ee soo yeeray. laakiin wasiirkooda arrimaha dibadda Maxamed bin Abdurrahman Atani ayaa waxa uu tagay wadankaasi Kuwait halkaasi oo u gudbinayay si caadiya jawaab ah laakiin aan ahayn jawaabta waafiga ah ee kama dambaysta ee Qatar ay ka sheekeynayso marka la fiiriyo waxyaabaha laga doonayo. dawladda Qatar waxaa lagu soo rogay xanibaad dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca diblomaasiyadda iyadoo loo tiriyay inay tahay mid iyadu gargaarta argagixisada waxa ay ku tilmaameen wadamada afarta ah iyo dhinaca kale iyagoo sheegay in deganaanshaha gobolka Qatar aanay ku wanaagsanayn oo markaasi qaybteedii ay meesha ka baxday. arrimahaasi oo dhanna Qatar way iska fogeysay waxay u tilmaantay waxaan sal iyo raad toona lahayn oo la dhoodhoobayo. waxyaabaha laga codsaday kamid ah waa ta koobaade in ay xiraan janalka Al Jazeera ee magaalada Dooxa oo ay dawladda Qatar iyadoo ay maalgeliso taasoo ay sheegeen qodobka koobaad inuu yahay in gabi ahaanba albaabada la isugu dhufto mar dambe Jazeera satellite ahaan hawada aanay soo galin. waxaa kaloo lagu wargeliyey oo qodobada kamid ah in Iran xiriirkeeda gabi ahaanba ay yarayso hadday tahay Qatar iyo in saldhigga military ee Turkiga magaalada Dooxa laga raro oo dib loogu celiyo dalka Turkiga. arrimahaasi saddexda iyo kuwa kale oo ay kamid yihiin aqwaar muslimiinka in xiriirka loo jaro waxay noqdeen kuwa ay u aragtay dawladda Qatar inay yihiin arrimo aan suurtagal ahayn marka la fiiriyo waxyaabaha iminka waaqiciga ee ka jira adduunka. arrimahaasi waxay noqdeen ismaandhaaf xoog leh oo weliba ay iminka ku goodinayaan afarta wadan 48 saac haddii aanay ku yeelin 13 qodob Qatar inay sii ballaarin doonaan cunaqabataynta dhinaca diblomaasiyadda iyo weliba dhaqaalaha. tan iyo intii cunaqabataynta Qatar lagu soo rogay waxaa kaalmo cunto iyo arrimo kaleba ay ka imanayeen wadamada Turkiga iyo Iran laakiin haddana taasi kuma aanay filayn marka la fiiriyo baahida joogtada ah ee maalmeed ee ka jirtay dalka Qatar iyo waxyaabaha uga iman jiray guud ahaanba wadamadaas iyaga ah.
sacuudiga oo keliya 40% cuntada laga cuno dalka qatar waxay ka iman jirtay sacuudiga taasoo meesha ka baxday oo gawaaridii waaweyn la joojiyey waddanka qatar uma muuqdo mid aqbali kara qodobada culculus ee la soo jeediyey afarta wadano uma muuqdaan kuwa ka noqonaya qodobada ay soo jeediyeen maxaa yeelay caalamka sida Mareykanka iyo reer galbeedka ayaa waxa ay u sheegeen wadamada afarta inay dabciyaan oo ay wax ka bedelaan shuruudaha ay ku xireen dalka qatar laakiin lama hubo balse looba jooge waxyaabaha soo baxa maalmaha soo socda waayahay daawadayaal intaas waxaa inooga diloor wixii naga soo gaaray dalka gudihiisa iyo dabadiisa oo akhrinay anigu Maxamed Saciid Saxaaf intaanu ku kulmayno warkan warkiisa xiga oo bahda wararka telefishinka caalamiga Universal Studio hena magaalada London oo in kaga tagay meel bad caalamka joogtaan sidaan siiyo nabadgelyo